aad baad u mahadsantahay gudoomiye ugu horeyn xilkan gudoomiyenimo mee ayaa lagu doortay xilkay gudoomiyenimo waxaa laga soo magacaabay ama gudoomiyaha gobolka sportska gobolka Mudug Maxamed Yuusuf uu magacaabay 22kii bishii 12 2020 ma cid baa kula tartamaysay mise asaga gartay inuu gudoomiyaha xilkan ku magacaabo gudoomiyaha sportska gobolka Mudug waxaa garatay ama dhalinyaradii markaas degmada sportska ahayd baa gartay kadib iyaga ay geeyay meesha magacayga anu ma tegin iyaga ay dhalinyaradii baa tidhi kaasaan gudoomiyuhu wadanaa gudoomiye marka inaan noo magacaawdi darabnaa marka sidaasaa ku timid sidaasaa ku timid wagaag waqti aad yar u kooban baad xilka gudoomiyenimo haysaa dabcan degmada Xarfo waxa ka socday koob 4 kooxood loo dhigay dabcan adiga ayaa qabtay intaad xilka haysay koobkii kugu horeeyay aad qabatay miyuu yahay kan oo koobkii ugu horeeyay aan qabtaa laakiin koobkan anigu macnaha wixii maamuuska ka baxay ma bixinay waxaa ku magacaaban maamuuskaas iyo macnaha qabashadiisa iyo kharashaad ayay urur isxaqaamiyaala oo degmada ka dhisan oo la yiraahdo dhacal reeb ayaga dhanka dhaqaalaha idinka kaabay iyaga dhanka dhaqaalaha koobka ma kaabay aad baad mahadsan tahay manoo dul mari kartaa kooxaha afarta ah sida isugu aadeen maadaama galabta finaalka uu dhacay aad waan dul mari karaa sida aan ku dul mari karaa afarta kooxood waxaan u sameynay qoratuur si caadi ahayd koobkuna wuxuu ahaa horyaal ama way is arkayeen afarta kooxda waan gartay marka afarta koox magacyadoodu mid waa horyaal primary school oo ah kooxii ku guuleysatay koobka galabtay finaalkii midna waa kooxii kaloo galabtay la ardamasay oo kasoo horjeeday dowladda hoose iyo labadii kooxood oo groupka kusoo haray oo midna magaceedu yahay Wadajir FC midna Kulmiye FC waa hagaag galabta finalka ugu dambeystii yaa ciyaaray finalka ugu dambeystii galabta waxaa ciyaaray horyaal primary school iyo dowladda hoose وهاجاك طبعا مركي فينال يعني لقبانية أما ترتم فينال وجرو ضد مدح أيها لقوا عسوما هدي أهان له مامورك سبورتس جوبل كوميدو إيه مرت الشرف كله يعني كلا سوق قبل قلبت فينال كان فينال كقلبت واحد أنا كلا سوق قبل دود مدوك يو حملو سجى مركزي لسه غنية يو محمد بس أو مدح جرومدا وهاجاك عدة كوب كقاضي ما حد قدوم سيسين أبان مرن هدي يشرتوا أكلنا لو ذا كواحد يقول أغلاق وناك سند يو بلايرك يقول لأنت قاضي هدي أدور بحين كايسنا لو ذاك وحان قلبت قدوسين إني وحان بحني سن على المرن بام بحني كدي مركي لغسو تو كوبك سن على المرن وبناك كأه بام بحني ست على المرن واحد كلاعين كو مدوعه لاعب كي كوبكا oo siinay kabtankii kooxda FC Horyaal Saciid Cabdi Shukri Ali mid labaad ay ahayd gool dhalintii oo aan siinay Xidin Cabdilbaax Xirsi Xusni oo isna goolasho ku qaaday 3 gool waxaan kaloo aan bixinay macallinkii u fiicnaa ama coachkii u fiicnaa كوبكا أو قاتي تبرت إسماعيل أحمد أو معين قادي كوبكا وعن كلو بحني داير كوفينا عن سني عبد السلام محمود آدم دبرون وعن كلو بحني كرتنكي وأخلاق ضبطنا واسمع سني كرتنكي كوهذا دولته وسع سكرية بشير معنا وهاجاك أدبد ما سنتهاي قدومي waxaad hal mar noo dul martaa xaaladda guud ee sportska degmada Xarfo iyo kooxaha seeraada ee ka jira tiradooda inta ay dhan yihiin iyo seerabida labadaba hadaan dul maro kooxaha heerka koowaad horta waa afarta koox oo koobka dheelisay waa Horyaal Primary School dowladda hoose Wadajir iyo Kulmiye
heerka labaad waa 5 kooxood oo kala ah Puntland, Doogsan, Golis iyo Waabe iyo Himilo iyo Holland. heerka labaad hadii ilaahay inmo waxaan jeclaan lahaa bari galab insha Allah inuu iyana u bilowmo koobkii oo xitaa waa loo soo qori tuur gruubada kala galeen hadaarada waa ku sheegi karaa ku soco bari galab hadii ilaahay waxa noo bilaabanaya koobkii heerka labaad santa koox heerka labaad degmada waxaana gruubada u kala galeen laba gruub ay gashay saddex gruub ay gashay saddex gruub ka gashay waxa weeye Milo iyo Golis iyo Doogsan waxa labada gruub ka gashayna waa Holland iyo Puntland FC. Gudoomiye ma laga yaabaa qorshahaas labada koox magacyadooda hadaan sheego waa koox waa Real Primary School kooxna waa dawladda degmada Xarfo labadaas magacyo ku kala deeliyeen kooxdii koobka ku guuleysatayna waa Real Primary School ciyaartii hadaan dul maro dalka ciyaarta afka hore waxa gool dhistay Real Primary School kadib afkii labaad waxa soo laabatay dawladda hoose oo la timi gooshi barbaraha oo hal ka dhig kadib waxa ay wada aadeen kolkulaad ama rigore ama penalty si ay ugu kala baxaan si qurux badanna ugu kala baxaan oo koobkii waxa ku qaaday Real Primary School. aad baad maasan tahay ugu dambeyn qorshaha ma kugu jira koob labaad oo seeraaya in ay u qabatay degmada insha Allah hadii ilaahay inuu aad iyo aad koob badan ugu jiraan inaan u qabto niimada kale waxaan ka soo laaway koobka niimadii laga lahaa oo aan anigu u qabtay maamul sports ahaan muhiimada aniga ugu jiray waxay ahayd si aan u helo xul sports oo degmadii iimad kala koobkan aan ugu xisho runtii macallin xul waa magacaabay koobkii intuu socday uu daawanayay sida ogaayna hadda uu isagu sheegayna xul dhameystiran uu ka xishay koobka niimadii koobka aan maamulku kala ahaana taas weey aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha sportska degmada Xarfo Madar Axmed Jaamac oo waramaya hanfada sports gudoomiye waqtiga muhiimka ah nasisay waa kaaga madcelinayna hadii inuu nahay baad hanfada sports dhanka farsamadan waxa si hagarlaan iga hagayay saaxiibkay Yusuf Carab tan iyo kuntidan dambe haduu Allah awood la idmo waxaan leenahay anagoo isku duwan baad hanfada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh